waxaana ka shaqayn doonaa insha Allah wada arki doontaan in la horgeeyo cadaaladda waxa ay mutaystaan lagu xukumi doono ayadoo oo loo tabin doono si leef ay ummadda Soomaaliyeed ay wada arki doonto insha Allah wada daawan doonto qofkii dib geystay iyo qofkii goobta joogay maaragtay aan tuunka u soo qabanayba ayagoo oo wada jira ayaan geyn doonaa maxkamadda haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa inay helaan cadaalad waxay maaragtay ku xukumi doonto waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku kalsoonaan doonaan tallaabooyinka aan qaadnay oo guud ahaan hay'adaha amniga iyo gobolka Banaadir ayagoo iskaashanaya ay ka qaadeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee maalmihii dhaweyd soo noqnoqonayay aad iyo aad waxaan uga xunnahay inay dhacdooyinkaasi soo noqdaan waxaana rajayn doonaa insha Allah inaan sida ugu haboon aan maaragtay uga hortagi doono hadda kadib inay dib u soo laabtaan dhacdooyinkaasi waxaa kale oo aan xoogga saaraynaa oo ka shaqaynay maaragtay 24 saac ee la soo dhaafay inaan wax ka bedelo goobaha muhiimka ay ciidamadu joogaan qaab dhaqameedka ama qaabka ay u shaqaynayaan inaan wax ka bedelo kuna kordhino dad waaweyn oo waaya araga oo saraakiila oo kor joogtaysa ciidanka jooga goobaha sugidda amniga ay u joogaan qaabka ay u shaqaynayaan iyo qaabka ay dadka oo la macaamilayaan iyo ciidanka joogay muuqaal ahaan sida ay maaragtay ay u muuqdaan waxaa kaloo ka shaqayn doonaa insha Allah in cid kasta oo ku xadgudubta sharciga tallaabo degdega aan ka qaadno oo aanan meel luuqa aanan ku qarsanin si waadax insha Allah aynu goobjoog ooga wada noqon doono cidda xadgudubka samaysa tallaabooyinka oo sharcigu ka qaadi doona haddii alle waxaad ogtihiin magaalada Muqdisho ummadda ku nool dulqaadkeeda aad ogtihiin culayska iyo waxa saaran maaragtay ay u dulqaataan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka ay nala jooga waxaan ka shaqayn doonaa insha Allah inay sida ugu qiimaha badan ee ugu muhiimsan ee ugu jecel yihiin inaan ugu shaqayno ciidanka booliiska ay uga adeegaan guud ahaan ciidamada amnigu waxaa kale oo ayaamahan ku soo kordhay magaalada Muqdisho dilal ay kooxaha khawaarijta ay dilayaan dad shacaba oo guryahooda jooga oo waxba galabsanin inaan ka hortagno oo aan la dagaalano annagoo kaashanayna maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed ee la dilayo waxaan ka codsanaynaa inay shacabka Soomaaliyeed nala shaqeeyaan soo sheegaan tuugadaas dilaayaashaas dhiigooda banaystay ee dhiigga muslimka maaragtay inay ku qabaystaan oo ay dilaan dadka masaakiinta ah ee maaragtay goobahoodii shaqo jooga oo guryahoodii jooga oo cidna waxba maaragtay aan u dhimin inay soo sheegaan ay hay'adaha amniga la shaqeeyaan waanu ka codsanaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay mar dhow ay soo afjaranta ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah waan rajaynaynaa